hore loo yiri adduunyada nin joogo wax walba waad arki maanta waxaynu idiin haynaa barnaamij cajiib ah oo ku saabsan nin asagu u ciya sida xayawaanka mid dhagxaanta ruuga mid asagu dib u socdo gadaal u socda mid sida birlabta ah iyo kuwa kaloo fara badan bal intaynu u guda gelin marka hore barnaamijkeena subscribe garee share garee fadlan hana hilmaamin inaad like noo saarto William Jafta waa muwaadin u dhashay dalka South Africa gaar ahaan magaalada Cape Town ninkan ayaa asagu awood u leh inuu u ciyo xayawaanada qaarkood sida digaaga eyga dameerka fardaha shimbiraha iyo kuwa kale oo fara badan bal nala daawo ninkan iyo xirfadiisa Pikiraba oo u dhashay wadanka India waxa uu caan ku yahay cunista dhagxaanta iyo ciida ninkan ayaa asagu hawshan ku dhex jiray ilaa yaraantiisii waxa uuna maalintii u cunaa in u dhiganta hal dhagax iyo 2 kiilo oo ciid iyo quruurax isugu jira haddaba ninkan ayaa reerku ka dhashay waxa ay uga digeen in uu sii wado cunista dhagxaantan taasoo keeni karta in caafimaadkiisa ay wax u dhinto hase yeeshee ninkan ayaa asagu iska dhaga tiray talooyinka ay siiyeen dhakhaatiirta iyo ehelkiisa in uu joojiyo malaha ninkan wuxuu khalad u fahmay maamaadii Soomaaliyeed ee ahayd waxaan ku cunin waa la cunaa bal hadda wali waxaynu ku dhex jirnaa wadanka India oo lagu arko waxyaalaha ugu cajiibsan adduunka ninkan aad aragtaan ayaa waxa 25 sano ee la soo dhaafay waxa uu asagu ahaa dib u socod ama nin u socda gadaal ninkan ma xanuunsana mana waalna ee wuxuu ku andacoonayaa in uu doonayo in 25 sano ee la soo dhaafay uu u ololeynayay in adduunka ay ka dhacdo nabad waarta haddaba waxaa la yaab iyo ama kaag iyo isweydiin leh xiriirka ka dhaxayn kara in aad dib u socoto oo aad gadaal u socoto iyo in adduunka ay ka dhalato nabad waarta iminkana dalka aynu jaarka nahay ee Ethiopia ninkan aad aragtaan oo magaciisa la yiraahdo Diraar Aboya ayaa asagu ah muwaadin ka soo jeeda gobolka Tigreega ee qowmiyadda Tigreega ee dalka Ethiopia ninkan ayaa asagu caan ku ah in uu ku socdo ku ordo kuna booda gacmihiisa taasoo Ilaahay uu u fududeeyay isticmaalkooda haddaba mar la weydiiyay midda u fudud lugaha iyo gacmaha ayaa waxa uu sheegay ninkan in ay u fududahay ku socodka wax ku qaadida ku orodka iyo ku boodida gacmihiisa xirfadan oo uu soo bilaabay waagu yaraa ayaa waxa uu sheegay ninkan in uu aad u daawan jiray filimaanta King Fuga iyo filimaanta Japanese-ka kuwaasoo uu u qaatay in ay yihiin run taasoo dhalisay in uu jirkiisa aad u dhiso uuna u isticmaalo biraha qaadidooda taasoo u fududeysay in uu gacmihiisa ku socdo ku ordo kuna boodo ninkan ayaa sheegay in hooyadii ay marar badan kula talisay in uu joojiyo arrintan iyadoo uga cabsi qabta in uu dhaawac soo gaarsiiyo jirkiisa iminkana aynu ku noqono dalka India ninkan aad aragtaan ayaa ah muwaadin u dhashay dalka India ninkan ayaa Ilaahay waxa uu awood u siiyay in jirkiisa ay qabato birta fargeetooyinka malqacadaha iyo biraho idil haddaba baaris jirkiisa lagu sameeyay ninkan ayaa waxaa la ogaaday in wax bira aysan ku jirin jirkiisa balse ay tahay awood uu Rabbi u siiyay jirkiisa in uu soo jiito wax walba oo ka samaysan bir ugu dambeyntii bal muwaadinkan nala daawada u dhashay wadanka Turkiga kaasoo leh shaarbaha adduunka ugu dheer kaasoo dhirkiisu uu gaarayo in ku dhow 1 mitir ninkan oo u dhashay dalka Turkiga ayaa asagu sheegay in uu shaarbahan korinayay muddo ku dhow 20 sano uuna yahay hadda ninkan haysto rikoorka adduunka ee ugu shaarbaha dheer daawadayaal hadduu idin cajabiyo muuqaalkayaga fadlan noogu soo jawaab qaybta comments-ka haddii aad ku cusub tahay channelkan fadlan ha hilmaamin in aad share garayso subscribe garayso wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh